habeen wanaagsan daawadayaal halkani waa warsanqaad media fadlan hanaga baqiilin ina follow page kana dhahdo siina faafiso muuqaalka mahadsanid madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada booqan doona Israa'iil sida uu ku warmay xogayaha arrimaha dibadda Antonio Blinken oo kulamo isdaba joog ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil wuxuu halkaasi tagayaa waqti xasaasi u ah Israa'iil gobolka iyo dunida ayuu yiri Blinken magaalada Washington afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa u sheegay wariyaasha in Biden uu booqan doono Tel Aviv uuna isla maalintaasi tagi doono wadamada Oman, Jordan halkaasi oo uu kula kulmi doono boqor Cabdullah madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi iyo madaxweynaha maamulka Falastiin Mahmoud Abbas aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu xoojin doono in Hamas aysan u taagnayn xuquuqda dadka Falastiin u leeyihiin sharafta iyo ay ka tashigooda uuna sidoo kale ka hadli doono baahida bini'aadanimo ee Gaza. Blinken ayaa sheegay in xal suurtagal ah laga gaaray in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo Falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Gaza kadib kulan socday 7 saac bar oo uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu maanta ayada oo la eegayo codsigeena Mareykanka iyo Israa'iil waxay ku heshiiyeen in ay horumariyaan qorshe suurtagelinaya in gargaarka bini'aadanimo ee ka imaanaya dalalka deeqaha bixiya iyo ururada caalamiga ah uu gaaro rayidka Gaza iyaga oo kaliya oo ay ku jirto suurtagalnimada abuurista goobo gacan ka geysanaya in dadka rayidka ah laga ilaaliyo dhibaatada ayuu Blinken ku yiri hadal kooban oo uu siiyay wariyaasha waxa uu sheegay inay muhiim tahay in gargaarka uu sida ugu dhaqsaha badan ku gaaro Gaza balse waxa uu walaac ka muujiyay in Hamas ay isku dayaan inay la wareegaan saadka ama ay ka hortagaan qaybintooda. Israa'iil ayaa 300,000 oo askari soo dhoobtay xadka Gaza kuwaas oo u diyaar garoobaya duulaan dhulka ah iyadoo wacad ku martay inay baabi'in doonto Hamas. 100,000 oo reer Gaza ah ayaa u hoggaamsamay amarada Israa'iil ee ah in waqooyiga Gaza looga guuro qaybta koonfureed ee marinka ka hor weerarada la filayo.